English System Principles, okay? qaybtii labaad ayaan ku jirnaa. Waxaa jira markaad English baranaysid waxyaalo ay tahay inaad ku dadaasho aad samayso si aad Englishka guur uga gaartid. Sidaasi la mid ah, waxaa kaloo jira waxyaalo badan aad u baahan tahay inaad iska ilaalisid aadan weligaa samaynin si ay guushaada kugu soo degdegto. Dabcan, sababtaan u sheegayaa waxay tahay marar badan waxaa jira waxyaalo aad u malaynayso inay guul ku horseedayaan ama wax ku fahmaysid ama si dhaqsi ah aad wax ugu baranaysid, laakiin waxay u shaqaynayaan waxyaalaha qaar sida cagsigeeda. Dabcan, anigu markii hore waxaa jiray qalad aan ku dhacay oo ahaa inaan Englishka barto haddana focuska saaro vocabularies ama erayada. Then waxaa samayn jiray waa tixi jiray ayagoo dhan waa xifdin jiray laakiin taasi natiijo ima keenin. Kadib sannado ayaa waxaan ogaaday xalkii saxda ahaay kaas oo beddelay wax walbo. Dabcan, adigna waad u baahan tahay inaad caawinaad heshid sidayda camal. Aniga halkan kuu joogo oo diyaar u ah inaan kuu sharxo waxyaalaha aad u baahan tahay inaad focuska saartid, aad xoogga saartid, aad samaysid iyo waxyaalaha u baahan tahay inaad ka digtoonaatid aadan marnaba samaynin. Okay, aan ka bilowno midka koowaad. Do's and don'ts of the smooth English system. Okay, do's waxaa loola jeedaa marka waxyaalaha ay tahay inaad samayso. Okay, do's waxyaalaha ay tahay inaad samayso and don'ts waxyaalaha ay tahay inaad iska ilaaliso of the smooth English system markaan English baranayno aan joogno smooth English. Okay, midda koowaada waxay tahay marka do, okay, samey. Learn English naturally and automatically. U baro Englishka si dabiici ah. Okay, si dabiici ah. Okay, midda kale waxay tahay aad u baahan tahay inaad iska ilaalisid baa waxay tahay don't stick to old methods that confuse and frustrate you. Okay, ha ku dhigin. Don't stick, ha ku dhiginaan ama ha ku dhigin, okay, to old methods hababkii hore that confuse kaas oo ku wareerinaya or and frustrate ama ku jahwareerinaya. Labaduba waxaa waa confuse and frustrate waxaa waa wareerin ama jahwareer. Okay, midda koowaad waxay ahayd u baro Englishka si dabiici ah ee automatic ah. Waa soo baranay sida lagu baranayo Englishka weliba si dabiici ah oo automatic ah. Midda koowaad aad u baahan tahay inaad iska ilaalisida waxay tahay marka inaadan ku dhegin, okay, ama aadan weligaa dul joogin waxyaalo aanan shaqaynayn. Tusaale, aniga haddaa iska soo qaado tusaale ahaan waxaa ii shaqaynayday vocabulary-gii la taxaya ilaan xifdiyo ama aan isticmaalo markaan hadlayo. Way igu adkayd, way ii shaqayn weyday. Then waan beddelay oo waxaan bilaabay in vocabulary-yaashii aan jumlo dhexgeliyo sidaasi aan ku barto. Dabcan mararka qaar waxaad arkaysaa arday waqti badan iskuul aada ama ku dhahaya sanado ayaan English baranaynaa aanan ku hadli karin Englishka. Taasi caqabad iskuulka haysata maaha, waa caqabad adiga ku haysata. Adigaa lagaaga baahan yahay inaad beddeshid, adigaa lagaaga baahan yahay inaad ficil samaysid. Okay, midda labaada waxay tahay do listen actively every day. Samey dhegeysi maalinle ah, weliba dhegeysi fircoon. Okay, weliba dhegeysi firfircoon. Maxaa loola jeedaa dhegeysi firfircoon? Dabcan, markaa wax dhegeysanaysid ha seexan. Markaad caajisan tahay adoo sariirtaada jiifa haddii aad cod dhegeysato waxba kama fahmaysid, natiijana kuma keenayso. Laakiin waxaa samaynaysaabaa waxay tahay markaad ordaysid, markaad socotid, markaad hawl qabanaysid dhegeyso Englishka. Active listening ha lagaa helo maalin walbo, maaha malmar, maaha asbuuciba hal mar, waa maalin walba, every day. Midda labaad aad u baahan tahay inaad iska ilaalisid baa waxay tahay marka aadan samaynin don't depend, ha ku tiirsanaanin only reading and grammar books. Ha ku tiirsanaanin wax akhrinta iyo buugaagta grammarka ah, laakiin waxaa u baahan tahay baa waxay tahay inaad wax akhrido, wax dhegeysato, okay, maalin walbo wax qorto, wax walba aad samayso. Ha isku xirin grammar keliya ama inaad wax akhrido keliya, laakiin dhegeyso weliba si firfircoon. Okay, wax akhri, wax qor. Okay, midda saddexaad baa waxay tahay aad u baahan tahay inaad samaysid master English through deep learning. Englishka master garey, perfect ku noqo adigoo u maraya deep learning, waxbarasho qoto dheer.
qota dheeraanshaha waa soo sheegnay oo hal cashar ku ilaali repetition ku sameey maalin walbo 5 mar 4 mar 6 mar ilaa iyo halkaad awooddo hal cashar midda kale aa u baahan tahay inaa iska ilaalisida waxay tahay marka don't memorize words and forget them tomorrow ha xifdin erayo si aadan u ilaayin maalinta ku xigta erey aa u xifdinaya saasaan ku baranaya ma jirto iska ilaali erey ha u xifdin waa qaradkan sameeye camal anigii markii hore waxaan samayn jiray vocabularyyaasha inaan isku dul qorto oon taho ayaa waxaan dhihi jiray waa xifdin jiray mid walbo okay ayagoo dhan aa xifdin jiray laakiin ma shaqaynin markii dambe jumladan geliyey saasay ku shaqaysay adiguna waxaa u baahan tahay marka inaadan weligaa aadan erey keligiis aadan xifdin haddaa xifdinaysid ha ku dhex jiro cashar ha ku dhex jiro jumlad okay midda faraada waxay tahay build the mindset of a confident English speaker dhis maskax okay maskax shakhsi English fiican ku hadla ama qof English ku hadla maskaxdiisa dhis maxaa loola jeedaa aamin inaad tahay English learner ama English barta wanaagsan ama arday Englishka ku wanaagsan aamin inaad tahay okay midda kale u baahan tahay inaad iska ilaalisida waxay tahay weligaa ha dhihin don't keep saying weligaa ha dhihin my English is bad Englishka wuu xun yahay haddii aadan akhrin karin haddii aadan maxayde ku hadli karin dheh waxaan ku fiicanahay dhegaysiga saacadan dhegaysan karaa dheh daba waxaa jiro 20 daqiiqo aanan wax focus saari karin haddii adiga marka aadan ku hadli karin aadan maxay ahayde qori karin waxaad dhihi kartaa okay anigu waan kaa fiicanahay sababtu waxaa waaye waxaan dhegaysan karaa hal saac ayaan English dhegaysan karaa 20 daqiiqo ayaan English dhegaysan karaa waa adiga wax ku gaara okay waa awooddaada marka mudda shanaada waxay tahay aad u baahan tahay inaad samaysid use your motivation isticmaal dhiirigelintaada your emotions dareenkaaga and energy iyo weliba tamartaada iyo awooddaada u isticmaal to learn inaad wax barato dabcan waxaa haysaa waqti waxaad haysaa awood okay waxaad haysaa tamar intaasoo dhan ku bixi sidaad wax u baran lahayd midda kale aa u baahan tahay inaad iska ilaalisidaa waxay tahay marka okay don't wait for others dad kale ha sugin to push you inay ku bushgareeyaan oo ku riixaan okay push yourself nafsadaada riix uma baahnid inuu qof maxahayde ku riixo uma baahnid inuu qof kuu sheego waxaa samayn lahayd ama inuu qof ku dhiirigeliyo adila isu sheeg waxaad u baahan tahay adiga isdhiirigeli soco okay waxaan soo gaarnay gabagabadii weliba kii ugu dambeeyey ee 6aad trust the process and stay consistent haddaad hesho wax aa u malaynaysid inay shaqaynayaan ama wax ku cajabiyo haddaa aragto aamin broseskooda joogtay okay joogtay broseskoodana aamin midda kale aa u baahan tahay inaad iska ilaalisida waxay tahay marka don't expecting fluency overnight inaad rajaysid Englishkoo dhan inaad ugu hadashid si fiican weliba hal habeen ama hal maalin or ama quitting when it feels slow ilaad iska joojisid waxbarashada ama wax akhrinta ama wax dhegaysiga markaad caajisan tahay hadafyadaada laakiin yaysan ku hegin marnaba dareenkaaga maalmo qaar aad jirto aad wax badan xiisaynaysid iyo maalmo qaar aad waxyaalihii saxda ahaay adoo og waxyaalahaas inay yihiin wixii saxda ahaay aad u baahnayd inaad qabato aad ka caajisaysid ha raacin dareenkaaga raac guulkaaga iyo hadafkaada ama yoolashaada halkan haynoo joogo casharkeena intaan mar dambe dib ugu kulmi doono cashar kale waxaan idin leeyahay maca salaama